السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا AMA Associates مقعد عبد الرزاق محمد عبدي إن شاء الله تعالى ما أنتم حندو استاجي دونا أساس كدقالها قرنك قاس أهان وحن سيجارة وفيرين دونا نظامك عشوراتك أما وحلو يقانو income tax income tax عشور تسيدة معها وحدة البربرية وواحد لقول السكابة يا شد قالة دل والبقوم مدح بنان عشورته wadamada hore u maray waa aad iyo aad sharciga ka yaal waa qasab ma aha wax maaragtay maxaan ku qoday laga dhuuman karo cidii ka dhuumatana waxay ku kasbataa xarig iyo penalties waxa la yiraahdo qaraamaad la saaro maaragtay ama lacag la dul saaro oo laga qaado maanta waxaan si fiican u dhaxgeli doonaa nidaamkan UK ka jira ee income tax loo yaqaano iyo maaragtay maxaa la dhahaa waxaan taxana ka dhigi doonaa canshuuraadka qaybaha ay u kala baxaan haday tahay income tax corporation tax maartay waxa la yiraahdo VAT waxa dhan waa dul istaagi doonaa laakiin qaybta hore aan ku bilawnay waa maxay income tax horto income tax waa canshuur laga qaado qof walba oo qaangaar ah ee ka shaqeeya waqtiga shaqada jooga maartay maxaa la dhahaa inta u dhaxaysa xilliga qaangaarka qofka uu noqdo 18 wadankan UK hadda aan joogno ilaa iyo 67 sano waqti xaadirkan marka qof walba oo muwaadin ah waxa lagu soo anqariyay oo loo sheegay in wadankani wuxuu ku leeyahay mar allaala markuu dakhli soo galana asigana qaybtiisa in uu wadanka ku beeriyo waa wax laga maarmaan ah qof walba oo muwaadin inuu ogaado wadankeena Soomaaliya insha Allah taala waxa rajaynaynaa sidaas oo kale in dadka la tababaro la wacyi geliyo lana tuso nidaam cadaalad iyo sinaan ku dhisan oo qof walba oo danyar uu ma aragtay u dhimrinaya qof walba waxayana wixii aan dhib lahayn wadankana wax lagu qabanaya ka qaadaya marka insha Allah taala income tax as barbar dhigno marka wadankan hadda aan joogno UK waxa laga qaadaa qof walba oo qaangaar ah ama iskiis ha u shaqeysto ama ma aragtay ha u shaqeeyo dawlad ama ha u shaqeeyo shirkad marka waxaa loo kala qaadaa dakhliga qofka bini aadamka soo galaya non saving waxa la yiraahdo iyo saving waxa la yiraahdo iyo dividend waxa la yiraahdo non saving waxa la yiraahdaa wax allaala wixii ku soo galay ee ka soo galay ilo aanan ahayn kayd iyo maalgashi waa non saving ma aragtay maxaa la dhahaa saving income waxa la yiraahdaa waxa ka soo gala dakhli kasta oo ka soo gala lacag aad maal gashatay lacag aad ma aragtay bangiga dhigatay kayd ahaan saving ala yiraahdaa kayd ahaan aad bangiga dhigatay bangigiina uu ku siiyay dulsaar ama interest marka interestigaas ku soo galaya canshuur ayaa lagu leeyahay ilaa wax ku dakhli kugu soo biiray oo aanan hore u haynin waxa kale oo meesha jiray iyadana dividend tax waxa la yiraahdo oo maalgashi marka aad samaysid oo shirkad aad maalgashatid waxa laga doonayaa shirkadaasi hadii aad ka heshid faa'iido oo faa'iidadii qayb ay ka siiso faa'iido wadaag aad tihiin waxa la yiraahdaa saami qayb dividend marka shirkadda hadaad ku leedahay ma aragtay maxaa la share ama aad ka tahay ma aragtay saamile saamigaas wax allaala wixii uu ku shaqeeyo canshuur ayaa lagu leeyahay maxaa saa loo sameeyaa marka qofku wuxuu isweydiin karaa sababta la iga qaadayo maxay tahay canshuur maalgashiga aan sameeyay waxa la rabaa balance in la sameeyo sinaan iyo cadaalad qof walbo dadna ma aragtay xoogooda ku shaqeystaan oo dhididkooda ku shaqeystaan oo lacag bay kasbadaan wixii ay kasbadeenna waxa laga rabaa ma aragtay maxaa la dhahaa qadar lacag adigana hadii Ilaahay uu ku siiyay oo adiga aanan shaqeynaynin laakiin lacagtaada ay ku shaqeynayso adna waxa laga rabaa in aad wax ku darsatid wadanka maadaama adiga muwaadin ah ka tahay oo hawada wadanka aad ma aragtay qayb ka qaadanaysid wadooyinka wadanka aad dhinac ka isticmaalaysid airportada wadanka aad dhinac ka isticmaalaysid dekadaha aad dhinac ka isticmaalaysid adna waxa laga rabaa waxaasi dayactirkoodii iyo cusboonaysiintoodii in aad wax ku yeelato marka waa sidaas marka loo maartay sinaanta iyo cadaaladda loo ilaaliya marka tusaale ahaan aan ka soo qaadna marka income tax-ka maxaa la dhahaa UK qofka jooga sidoo income tax u bixiyaa horta qofka UK joogo wuxuu og yahay mar walbaba in canshuur lagu leeyahay oo haddii canshuurtaasi u baal marana xabsi uu ku muteysan karo sidaas daraadeed waa qasab ma aha isweydiin canshuurtaas mar walba inuu u bixiyo laakiin wuxuu og yahay waxa laga jarayo qadarka ay yihiin waa wax cayiman oo ma aragtay maxaa la dhahaa heshiis bulsho ah oo la isla wada og yahay haddana wuxuu og yahay lacagtii laga qaaday ee laga jaray mushaarkiisa meesha ay ku baxayso ha ahaato caymiska qaranka ha ahaato ma aragtay maxaa la isbitaalay lagu dhiso ha ahaato iskoolay lagu dhiso
dowladda ayaa laga rabaa budgetkii iyo lacagtii ay aruurisay ee dadka kasoo aruurisay meeshii ay ku bixisay marka waa dowlad iyo dad wada shaqaynaya marka tusaale ahaan dhanka kale Soomaaliya haddaan fiirino canshuurta laga qaada hadda mushaaraadka si buuxda looma fariisinin dadka qaar waa laga qaadaa gobolada qaar waa laga qaadaa gobolada qaar lagama qaado dadka qaar qadarka laga qaadayo xataa canshuurta ma aragtay maxaa la dhahaa wadanka kuma wada faafin oo lagama wada qaadabo marka waxaa loo baahan yahay si ma aragtay sinaan iyo cadaalad loo muujiyo dadka in la wada wacyigeliyo sharci laga soo saaro sharcigaas aad iyo aad ololo loo sameeyo dadka la wada baro deetana dadkan inay wadanka wax ku leeyihiin oo ay wax ka baxsadaan la baro tusaale ahaan qofka bini aadamka ah haddii uu kula heshiiyo dhalinyaro saaxiibadiisa inuu guri ijaarto ay guri wada ijaartaan kiradiina ay wada bixiyaan waxaa lagama maarmaan ah qof walba mas'uuliyadiisa inuu qaato oo kirada dhinaciisa ka bixiyo bisha markii la gaaro haddii la yiraahdo ka waran qofkii ma aragtay mas'uulka ahaa uu yiraahdo aniga qaybtii kiradeedu waa tan laakiin intii kala dhalinyartii kula heshiisay inay kirada iyagana qayb ka bixiyaan haddii ay diidaan ka waran ay dhahaan ma bixinayno meesha waxaa ka imaanayo ismaandhaaf iyo gurigii meesha inuu ku burburo heshiiska meesha ku burburo fashilna uu dhaco wadankana waa sidaas oo kale qof walba oo qaangaar ee wadankan dhinacu ka leeyahay hawada wadanku isticmaalaa ma aragtay maxaa la dhahaa badda wadanku isticmaalaa bariga wadanku isticmaalaa dee keligaa wax aad leedahay ma jirto waa milkiyad wadareed sidaa darteed dadka canshuurta ma aragtay waa in laga dhaadhiciyaa canshuurtii waxay u noqotay dadka laf dhuun gashay waa manishibiya lagu neceb yahay adduunka taasina waxaa keentay ma aragtay wacyigelin la'aan iyo dadkii oo aanan cadaalad iyo sinaan aynan u caddeen oo ma aragtay maxaa la dhahaa de waxoodii intii laga qaaday haddana dadka qaarkood ay ku ma aragtay intifaacayaan dadka qaarkoodna ay ka gaajaysan yihiin marka taasi waa in laga hor imaadaa laakiin dal aan dadkiisa dhisanin ama dadkiisa wax aanan ka bedelin ma dhismo waa in lagu baraarugsanaada hawshan in lagama maarmaan tahay wadadii loogu talagalay saxda ahaydna la marsiiya dhanka kale waxaan fiirinaynaa personal allowance waxa la yiraahdo cashuurta qof walba lagama qaado waxaa laga qaadaa qofkii awood leh taasina waxaa loo sameeyey nidaam la yiraahdo personal allowance marka waxaa waaye waa xayndaab la gooyey ama qoondo la gooyey oo la yiraahday qof allaale qofkii qoondadaas ama martabadaas wixii ka hooseeya dakhli ahaan ay soo galaan canshuur dhaaf ee dowladda u samaysay wadankan UK hadda aan joogno 12,570 waqti xaadirkan aan duubayno waa February 11 ilaa 2006 haddii aan fiirino ma aragtay maxaa la personal allowance ee wadanka waa 12,570 pound lacagtaasi wax ka yar haday ku soo galaan ama intaasba ay ku soo gasho wax canshuur oo lagu leeyahay ma laha adoo shaqaysanayo oo lagu ogyahay haddana canshuur lagu soo doonayn wax shuruuc iyo qawaaniin aad jibisan ma laha waa heshiis bulsho oo lagu wada heshiiyey cid allaale ciddii intaas wax ka badan shaqaysatana waxaa loo sameeyey band system wax la yiraahdo waxaa loo sameeyey martabada koowaad martabada labaad iyo martabada saddexaad martabada koowaad waa basic rate band oo ma aragtay maxaa la dhahaa martabada labaad oo dadka ma aragtay waa 20% ayaa laga qaadaa basic rate band martabada labaadna waa high rate band oo ah ma aragtay 40% martabada saddexaadna waa additional rate band waxa la yiraahdo oo ah 45% marka 12,570 iyo wixii ka hooseeya waa zero tax basic rate band 12,571 ilaa 50,270 waa 20% high rate band waa 50,271 ilaa iyo 125,000 iyo 140 pound waa 40% iyo additional rate oo ah wax allaala wixii income intaas ka sareeya oo over 125,140 boqol ilaa 5,000 iyo 140 pound wixii ka sareeyana waa 45% saasaa loo qeybiyey personal allowance-gana waa progressive marka ma aragtay maxaa la dhahaa 100,000 wixii ka sareeya oo aad lacag soo gasho poundkiiba maxaa la dhahaa labadii poundbo ma aragtay aa heshid hal baan ayaa la jaranaya 50% ayaa la jaranaya ilaa iyo lacagtaada ay ka gaarto 125,140 wixii intaas ka sareeyo xayndaabkan ama personal allowance waxa la yiraahdo ma lihid marka meeshaas waxaan ku ogaanay canshuuraha la dejiyey haddana dadka danyarta waa loo turay
haddana waxaa loo sheegay qofka maaragtay maxaa kale nidaamka wax looga qaadaya tusaale ahaan qofka 20,000 haddii soo gasho maaragtay maxaa la personal allowance-giisu wuxuu noqonayaa 12,570 canshuurta laga rabo waxay noqonaysaa boqolkiiba 20 oo lagu dhufanayo lacagtii soo hartay 7,430 bal fiiri 20,000 aad shaqaysatay 20,000 lagama wada canshuurayo waxaa lagu dhaafayaa 12,570 wixii soo haray haraagaagiya waxaa lagu dhufanayaa boqolkiiba 20 canshuurtaadina waxay noqonaysaa sanadkaas 1,486 marka casharada aan ka baran karno waxay tahay ilmaha marka uu yar yahay laguma qaado shaqada qofka weyn marka waa progressive awoodda iyo taagta intay la eg tahay ayaa maaragtay maxaa lagu jaangooyey canshuuraha la qaadayo okay nidaam meeshan waxaa ka jira la yiraahdo PAYE mushaarka waxaa lagu qaadaa si toos ah mushaar haddaa u shaqaynaysid shirkad dowladda waxaa wakiil ka ah shirkadaasi markii aad shaqaysatid waxay ku leedahay mudane intaasaa shaqaysatay intaasi xuquuqdii dowladda ay kugu lahayd waa annaga kaa jarayno oo kuma siinayna lacagtaas dowladdaan u haynaynaa bil walbana dowladdaan u diraynaa adigana maaragtay saafi lacagtaadii oo saafi ah net pay waxa la yidhahdo waa intaas marka deductionkii dowladda maxay marka u jarayaan waxa la yidhahdo income tax iyo waxa la yidhahdo caymiska qaranka national insurance waxaa ka mas'uul ah qofka maaragtay maxaa la dhahaa milkiilaha ama maaragtay shirkadda aad u shaqaynaysid haddii iskaaga u shaqaynaysidna self assessment system waxa la dhahaa samaynaysaa oo dowladda adigay ku aamintay in aad iska xisaabisid adigana maxaa samaynaysaa waxaa jiro xafiisyo maaragtay maxaa la dhahaa accountants Soomaaliya markaan tagay kumaan arkin xafiisyo accountants maaragtay oo widespread hal iyo laba way jiraan laakiin sida hadda maaragtay maxaa la loogu baahan yahay really looguma baraarugsana nootayooyin ayaa meel walba ka furan nootayo waxaa loogu talagalay inay u kala qorto laba qof oo heshiinayso tusaale ahaan maaragtay laba qof oo guri kala gadanaysa inay marqaati ka noqoto laakiin waxaa meesha ka maqan xafiisyadii maaragtay maxaa la dhahaa dadka xisaabiyeyaasha ahaa ee dowladda u fududeynaya ama u sahlayay in ay isku xirto ama bridge ay u noqoto dowladdii iyo dadkii cilmigii xisaabaadkii maaliyaddii iyagaa leh dowladdii shuruucdii dejisay iyagaa interpret garayn kara dadkiina iyagaa ka dhaadhicin kara wax xaq loogu leeyahay iyo wax xaq aan loogu lahayn marka xafiisyadaasi really meesha waa ka bannaan yihiin nidaamkan marka PAYE muxuu samaynayaa qofka tusaale ahaan wuxuu shaqaystay 2,000 bishii waxaa laga qaadayaa national insurance waa caymiskii qaranka iyo income tax canshuurtii ku waajibtay ayaa laga goynayaa qofkii waxaa soo haraya marka net pay canshuurtii tusaale ahaan 2,000 haddii uu shaqaystay 350 ay noqotay maaragtay isku celcelis wixii dowladda loo jarayay 1,650 la siinaa raalli ayuu yahay 350 hadda aan xisaabino 350 haddii loo qaybiyo ma aragtay 2,000 lagu dhufto 100 meeshaas waxa waaye 17.5% dakhligii soo galay ayaa waxaa laga qaatay 17.5 boqolkiiba haddana asigoo faraxsan oo gurigiisa aadaa sababta uu ogyahay lacagtaas laga qaaday caruurtiisa ayaa isbitaalka maaragtay markay u baahto free loogu maaragtay loogu qaabilaya ilmihiisa ayaa iskoolka ku dhiganaya waalidkiisa oo dad waaweyn oo shaqaysan karin ayaa maaragtay gunno ku qaadanaya marka xataa hadduunan lahayn isaga berri markuu weynaado qayb ka noqonaya nidaamkaas marka si nadiif ah ayuu lacagtii ku bixinayaa wuu og yahay inuunan baalmari karin qof walbana si cadaalad iyo sinaan looga qaadayo marka haddii nidaam la dego heshiis bulsho la dego heshiiskiina la oofiyo aad iyo aad ay u wanaagsan tahay taasi ayaana waddan lagu dhisi karaa marka income tax iyo maxaa iska galay marka nation building waddan in la dhismihiisa iyo canshuurtan dakhliga la aruurinayo maxaa iska galay dee waxaa lagu dhisayaa canshuurtii isbitaallo waxaa lagu dhisayaa kaabayaasha dhaqaale waxaa lagu dhisayaa dugsiyo waxaa lagu maaragtay lagu fulinayaa ammaanka dalka canshuur la'aan waxay sababaysaa dalku inuu ku tiirsanaado gargaar iyo gacan bini aadan dad facaa ah oo waddan dhistay oo nidaam dhistay mar walbaba inaad gacanta u taagatid marka waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala qof walba oo Soomaali ah in uu qayb ka noqdo heshiiska bulsho ee ah dakhli aruurinta maaragtay ama canshuur aruurinta canshuurtaas oo ah gunno loogu talagalay waddanka in lagu gargaaro waddankaaga u arag in aad wax ku darsato intaas ayaan kusoo koobaynaa income tax insha Allah tacaala taxanahan wuu socon doonaa waxaan bilaabayaa insha Allah tacaala qaybta ku xigta waxaan ka hadli doonaa insha Allah tacaala cashuurta maalgashiga ama
capital gains tax waxa la yiraahdo marka ha moogaan inaad la socotid channelkan insha Allah taala subscribe leh like iyo share waxaan isku dayaynaa insha Allah taala in aan aad u fidinno fahamka maaliyadda iyadoo afkeena Soomaaliyeed aan kaga boganayno insha Allah aad u mahadsantiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.